qof dhalinyaro ah waxa weeyaan soo tartamay oo xirfad la yimi oo fikrad keenay oo waxa weeyaan dadaal horay inaan u baahan adeer u baahan xildhibaan u baahan wasiir u baahan cid kale u baahan isagu competency-giisa iyo waxa weeyaan capacity-ga uu doonayo inuu ku tartamo isagoo halkaas soo bandhigo. inta badan waxaa la yidhaahdaa ama dowladdii ka horreysay oo kale waxyaabaha aadka loogu dhaliili jiray marka sanduuqa la joogo waxaa ka mid ah in qabyaaladda iyo eexda iyo waxyaabaha noocaas oo kale qof jeclaysi iyo sidaad hore u sheegtay in dadka qaar tusaale ahaan sanduuqu iyadoo la maalgelinayo uu dad gaara oo kale ay ku guulaystaan maxaa bulshada u caddaynaa in sanduuqa maanta aad agaasimaha ka tahay ee horumarinta dhalinyarada somalilan uu ka midhan yahay eex iyo qabyaalad iyo waxyaabaha la halmaala qofkii dhalinyarada tartamayay dan cod gaara doonayna inaanu qorno dee liis gaaraan soo saari lahayn oona liiskaasaa guulaystay laakiin wixii aanu baahinay iyo sidee u tartameen waad nala aragtay oo anagan markii koowaadna hoolkii sodaara ka dhignay oo dadka ummadda dhexdooda ku tartamaya markii dambena waatan miidiyihii aan u qaybinay miidiyihii soo la wadaagnay tartanku siduu dhacay. adigu intii madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo talada dalka hayay ayaa sanduuqa maamuleysay maxaad is leedahay ciddii kaa horreysay ama xukuumaddii kaa horreysay oo kale sanduuqa way kusoo kordheen dhaqaalaha aan horta bixinaa ama aan sanduuqa ahaan imika sameynaa rangeka waxa u badan waa 5,000. kulan habboon daawadayaal idil ahaantiinba meel walbaa naga daawanaysaan waxaad kusoo dhawaataan waraysi gaara oo stuudioga telefishinka caalamiga ah ee shaahi t v aan kula yeelanayno agaasimaha horumarinta sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan cabdiqaadir ismaaciil axmed oo loo garan uu yahay jaylaani agaasime marka hore waa kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga waana kusoo dhaweynayaa soo dhow. aada iyo aad walaal u mahadsan tahay axmed daayiro waa dhowahay adiga iyo tiimka shaahi t v waan salaamayaa waana dhowahay. way agaasime ugu horeyn bal dad badani haddii aynu ku bilownaba ma fahamsana shaqooyinka uu qaranka somalilan u qabto sanduuqa dhalinyarada somalilan bal ugu horeyn bal haddaad faahfaahin dhalinyarada ka siiso. bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin waa mahadsan tahay. sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan waxa uu taagan yahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan iyada oo laga shaqeynayo dhalinyarada entrepreneurska ah ee curinta leh ee fikradaha ganacsi haya ama inuu shaqo abuur uu sameeyo. sanduuqu wuxuu ka shaqeeyaa in shaqo abuurka dhalinyarada uu xooga saaro oo shaqo la-aanta uu la dagaalamo. waxaanu qaabkan u shaqeynaa waxa weeyaan in dhalinyaradu ay fikradahooda ganacsi soo bandhigaan isla markaantaana ku tartamaan oo lagu maalgeliyo oo maalgelin ay helaan deeq iyo deynba isugu jiri karta. marka qaabka uu sanduuq u shaqeeyaa 3 qaab buu wax u bixiyaa waa deyn toos ahoo qardo xasan ahoo aan wax dulsaar aanu jirin oo qofku intii la siiyey buu soo celinaya 3,000 baa la siiyey 3,000 buu soo celinaya iyadoon wax faa'iido ah wax dusha waxba ka saarnayn. ama deeq waa la siinayaa oo deeq buu bixiyaa loogu talagalay in dhalinyarada lagu horumariyo oo dhalinyarada fikradaha ganacsi haysta ama iyadoo isku jirtaba. marka qaabka maalgelinta uu bixiyaa waxa weeyaan waa noocyada maalgelin oo kaliya kama shaqeyna inaanu dhalinyaradii jahayno oo dhalinyaradii loo sheego waxa ay halka ay ka shaqeynayaan iyo si nolol u abuuran lahaayeen ruuxda noocaas in lagu jeediyo waxa weeye dhalinyarada la jeediyo oo shaqo abuurku qeyb weyn buu ka yahay ama dee challenge weyn oo dee dhalinyadeena guud ahaan haysataba weeyaan. markaa sanduuqu wuxuu ka shaqeeyaa in dhalinyaradii challenge loo helo opportunities aanu raadino daliyo dibadba dowladdu iyo waxa weeye qaranku xooga saaro in dhalinyaradii shaqo abuur loo sameeyo oo maalgelin toos iyo maalgelin deeq iyo maalgelin deynaba siiyo. sidoo kale in tababaro dhalinyarada la siiyo ku saabsan sida shaqo u abuuran lahaayeen ama shaqo u heli lahaayeen ama xirfadaha dhalinyarada xirfadaha farsamada gacanta leh in la promote gareeyo oo si ay shaqo u sameeyaan. waxaan ognahay in dhalinyarada ama dadka skillska leh inay shaqo abuur inay sameeyaan ay muhiim tahay oo iyagu shaqo abuuranayaan iskooda oo aan iyagu meel kale inay u shaqo tagaan ama baahan laakiin xirfadooda iyo qacantooda iyo waxay barteen lagu maalgeliyo. sidii barnaamijkan maanta lagu qabanayno kale halkan aan kusoo bandhignay degmooyinka dalka oo dhan ka fulinay dhalinyarada xirfadaha bartay
degmooyinkaa jooga baanu maalgelin siinay tuuliskii iyo qalabkii u baahnaayeen mashruuc ka horreeyo dee maalgelinahoo $500,000 gaadhayo deyna baanu sanduuqu bixiyo 148 qof ka faa'iidaysteen kii iminkana waxa ka faa'iidaystay 55 qof markaa sanduuqu qaabka u shaqeeyaa in short waa nooca way iminka tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah ee doonaya ama fikrad ganacsi oo wanaagsan oo uu isleeyahay waad ku faa'iidaysaa haya u baahan in la maalgeliyo sanduuqu shuruuduhu uga baahan yahay maxay noqonaysaa sanduuqu shuruuduhu uga baahan yahay marka koowaad sanduuqu qaabka u shaqeeyaa waxa weeyaan in markaanu inaanu soo baahino projectgaanu hayna ama maalgelintaanu hayna gobolada aan ugu talagalnay ama degmooyinka aan ugu talagalnay waanu baahinaa marka la baahiyo qofku wuxuu soo xaraystaa waxaa loo eegayaa shuruudaha loo eegaa inuu da ahaan 35 daada dastuurka jamhuuriyadda somaliland uu dhalinyaradu aqoonsan yahay in 35 ka yaryahay 18 ilaa 35 u dhexeeyo inuu fikraddiisa ganacsi fikradda shaqeynaysa oo waxa weeyaan riya la tahay dee waxa weeyaan markaa qofku tartan buu galaa tartan daahfuran buu galaa processkaasuu maraa qofku platform online ama online oo sanduuq oo qofku kasoo xariisanayo oo su-aale lagu weydiinayo markuu taa kasoo gudbo wuxuu soo gudbayaa screeningkii iyo banalkii in su-aalo toosa la weydiiyo qofku isagoo dee hoolkaa la fadhiyo oo ummaddu wada fadhido oo itusoo itaabsiiya kadibna waxa weeye halkaa ku tartamo markaa qofkii fikraddiisa ganacsi waxa uu ka damacsiyay su-aalihii markaa banalka ugu talagaleen ay ku weydiiyaan marka shuruudaha guud ahaan u weyn waa inuu qofku dhalinyaro yahay unbaa loo eegaa waxa kalena waxa weeyaan waa inuu fikraddiisa iyo waxyaabaha dee relatorka la ahee fikradda ganacsi wixii suurtagelinayay baa ayaga waxaa lagu weydiiyaa way adugu intii madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu talada dalka hayay ayaa adna sanduuqa maamuleysay maxaad is leedahay ciddii kaa horreysay ama xukuumaddii ka horreysay oo kale sanduuqa way kusoo kordheen sanduuqa intii anigu sanad baan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wuxuu magacaabay booskan agaasimaha fulinta sanduuqa horumarinta somaliland 17 Juun sanadkii hore 2025kii muddo sanada ayaan iminka xilka hayaa dee sanduuqa waxyaaba badan baan kusoo kordhinay oo dee institutionka gudihiisa tahay oo institutionka inaanu dhisno oo structurekiisii dhisno oo waaxihiisii dhisno oo dee marka hore sanduuqa unbuu ahaaya laakiin hay-ad ahaan baanu u kobcinay oo waxyaabihii institution dawliya laga doonayo o dhan waanu sameynay hadday structure qaab dhismeed haykalkii institutionka oo dhamaystiran baanu sameynay habraacyadii iyo boolisyadii uu ku shaqeynayay waanu sameynay waxaanu sameynay waxyaaba badan oo dee institutionka iyo guud ahaan dhalinyarada wax taraya oo sanduuqu dee waxyaabahaanu qabanaynay muddadaa sanadka ah waxaanu ka dhignay wax si transparent hol itusoo itaabsiyo la arkayo oo qofka gudaha ku jira iyo ka dibadda jooga ay soo wada arkayaan oo si wada qiimeynayaan oo xog qofka sanduuqa jooga ama shaqaalaha sanduuqa jooga ama aniga aan u baahnayn laakiin waxa iyagoo dhan waxaan ka dhignay wax media laga heli karayo ama page xisbiga laga heli karayo sanduuqa ama pageska kale ee saxaafadda laga heli karayo wixii aanu qabanay oo dhan waa nagii jimciyada documentary-gii aanu one year ka wixii aanu qabanay aanu soo baahineynay marka taa sababtan u sameynayna waxa weeyaan in sanduuqa maadaama aanu sanduuqii horumarinta dhalinyarada dee scope ballaaran uu yahay oo dhalinyarada marka jamhuuriyadda somaliland laga hadlayo dee dhalinyaradu wax 70 ka badan ay populationka bulshada somaliland ka yihiin waxaanu ka shaqeynayna uu dhaqaale yahay oo in dhalinyarada la maalgeliyo oo dhalinyarada wax loo taro oo wax la horumariyo ay tahay in bal taraskii sanduuqa lagu qabay ama kalsoonidii sanduuqa lagu qabay aan xoojino oo barnaamijyadaanu qabanaynaa barnaamijyo daahfuran ay ahaadaan oo la wada arkayo oo la wada qiimeyn karayo oo qiimeyn annaga naga baxsanay ay qiimeyn karayaan waataan ku salaynay barnaamijyadii markaanu qabanaynay tartansiinta dhalinyarada markaanu dhalinyarada tartansiinaynay marka koowaadoo waxa weeyaan dee qofku markuu soo xariisto degmada ama gobolka aanu tagno dee hoolkaa la fadhiyo way daawanayeen sida ay wax u dhacayaan iyo hanaanka iyo sida qofkan procedure-ku marayo marka taa lasoo dhaafay inta joogtay laga taga haddana dadkii bulshadii ka baxsanayd
environmentka ama halkaa deegaankaa joogtay mediahan ugu gudbinayno si idinkii baahinayay qaybta ka ahaa waxaan doonayna markaa in qof dhalinyaro ah oo isku kalsoon oo isagu waxa weeye xirfadiisii ama fikradiisa ganacsi inuu la bad iman karayo qarankiisii ama sanduuqii maadaama sanduuqa horumarinta Somaliland laga maalgeliyo canshuurta shacabka laga maalgeliyo dhalinyarada in ay ahaato wax daah furan oo u arkaa siday wax u socdaan waa sababta aanay u imanin in aan uga cararnay inaan intaanu dee bana loo saaro meel la yidhahdo shantaasa soo baxay ama afartaas soo baxay marka waxaan doonay inta dadka soo baxaya dad isla wada arkaya inay noqdaan qof dhalinyaro ah waxa weeyaan soo tartamay oo xirfad la yimi oo fikrad keenay oo waxa weeyaan dadaal horay inaan u baahan adeer u baahan xildhibaan u baahan wasiir u baahan cid kale u baahan isagu competency-giisa iyo waxa weeyaan capacity-ga uu doonayo inuu ku tartamo isagoo halkaas soo bandhigo isagana la arkay isagana la qiimeyn karo bulshadana qiimeyn karayso sanduuqa marka laga tago isaga la qiimeyn karayo marka taanu doonay siyaasaddan doonay inaan ku shaqeyno ka sanduuq ahaan ku shaqeyno barnaamijyada imkaan soo wadno iyo kuwa hore sanadkan muddada sanadkan intaan qabanayba taanu ku shaqeynay taas ahayd waxaan ka doonaynaa ruuxda qofka dhalinyarada ah inaan ruuxdiisa soo celino inuu isku kalsoonaan karo aanu cidna u baahnayn inaanu maadaama qarankiisii maalgelin uu ka helayo qarankii maalgelinayo inuu wadaniyad aamino oo waxa weeye dareemo inuu isagoo madax bannaan oo aan cidna u baahan wasto u baahan cid kale u baahan fikradiisa keeno barnaamijka marka la soo xayeysiiyo uu ka qayb qaato la arko waxa uu ku tartamayo waxa cidda calafka iyo nasiibka siiyo markaa saa ku soo baxdo iminka qofka dhalinyarada ay tusaale ahaan maalgelinta aa u sameynaysaan hadduu tusaale ahaan uu fikir ganacsi la yimaado oo dhaqaalo badan ku baxayo fikirkii ganacsiga ahaa uu shaqeeyo laakiin uu dhaqaalihii uu tusaale ahaan ku kacayo kale uu bato sidee u xalisaan dhaqaalaha aan horta bixinaa ama aan sanduuq ahaan imika sameynaa rangeka waxa u badani waa 5,000 oo lacaga fara badan oo scope-ka microfinance ahaan baanu ayaanu 5,000 baa u badan 5,000 iyo wixii ka hooseeyaanu maalgelinta lagu siiyo marka qofka qiimeynta fikradda ma soo xareystay iyo waxay tahay say u tahay intee real ay tahay intuu u baahan yahay waxaanu codsigan uu soo gudbistay iyo amount-ka la siinayaa ma isu dhigmayaanoo wax ma ka tarayaan fikradiisa ama ma ku bilaabi karaya ama ma ballaarin karaysa fikraduhuna waa dhalinyaradu soo bandhigayaan waa laba mid oo mar waa mid jirtay oo ganacsi jiray oo u baahan in la ballaariyo oo maalgelin dheeraad u doonayo midna waa mid fikrad cusub tijaabinaya oo fikrad cusub soo bandhigayo marka waxa loo eegayaa amount-kan uu doonaya ama lacagtan uu doonaya iyo wuxuu doonayay iyo say tahay ma isu qalmayaan oo dee waxan wax ma ka tarayaan haddii isagoo lacag badan u baahan yada waxaasan ku furayaa dee wax shuruudaha uu ku harhaya ama marka banalka wax laga weydiinayo dee loo eegaya kamid noqonaysa waxaan intee leeg buu dee yahay wax genuine ahoo qofkani qorshe saxa ma ku soconayaa dee qorshe saxa oo businesskiisa wax ka taraya iyo waxa uu baahan yahay iyo halkuu jooga ma isleeday ya iminka haddii tusaale ahaan in badan baad kolley gobollada bariga Somaliland iyo galbeedka u baxday maalgelin kala duwan baad samayseen bal haddaad 2 iyo 3 naga xasuusiso rag dhalinyaro ama haweenba ha noqdaan oo soo xareystay maalgelintoodii guuleysatay oo shaqeynayso oo fikradaha ganacsi ay la yimaadeen sanduuqa maalgeliyay waad mahadsan tahay Axmed Weyn barnaamijkii markii u dambeeyay aanu sameynay degmooyinka gobollada waaweyn kama aan sameyn waxaan ka sameynay degmooyinka waxaan ku daafurnay markii ugu horeysay Cilaf Weyn marka Cilaf Weyn gadaal aysan soo wadno ilaa Baki waan soconay barnaamijkaas wuxuu khaas u ahaa dhalinyarada xirfadaha baratay oo kaliya meherad ma ahayn qof meherad haysto oo fikrad ganacsi soo bandhigayo ama badeecad loo iibinayo ma ahayn waxay ahayd taasi dhalinyarada xirfadaha baratay degmooyinkaa joogtay baanu waxaan ka duwan markii assessment baa ka horreeyay intaana shaqada bilaabay markaan xafiiska saawaymi intaana shaqo kala bilaabin assessment baanu sameynay market research oo aan suuqa iyo dhalinyarada iyo sidee wax loo tari karayaa markaasay noo soo baxday
in maadaama resourcekan haynina yaraa magaalooyinkuna ay ka cof badnaayeen bal dhalinyarada degmooyinka jooga maxaa la tari karaya markaa assessmentkii waxaa kasoo baxay in dhalinyaro fara badan ay degmooyinka joogaan bilaa camalna yihiin xirfadana barteen oo xirfadaha qaar baahi gaara looga qabo degmooyinkaas oo aanay haysano marka qof xirfada wax uga baahdaa gobolada waaweyn ta ugu dhow uu tegayay markaa waxaanu ku tartansiinay xirfadihii ay barteen baan markaa tuul dhamaystiran oo qalabka ka caawinayay inuu shaqo tago dadkaasi dad fara badan oo waxay isugu jireen dhalinyaro ah oo u baahnaa in shaqo abuur loo maalgelin helaan shaqo abuur helaan oo waxa u fudud bay ahayd qof xirfad bartay oo haddana aan shaqaynaynin in aan markaa ka fekerin aan war sidee qofkan subaxa u shaqo tagaa subaxa koowaad ee tuulka la siiyo inuu shaqo tago magaalada galo qofka plumbing bartay ama qofka electricity bartay ama qofka welding bartay ama qof inta make up baratay waxay u baahan tahay tuulaha degmada iyo dadka iyo deegaanka u shaqayn karaysa marka fikradaha ay soo bandhigayeen fikrado badan bay ahaayeen oo shan ka tukaa qof feasible bay ahaayeen wax la daawan karay bishii Ramadaan oo dhan barnaamijkooda iyaga taxanaa ayay kasoo baxayeen oo ay fikradahooda ay kusoo bandhigayeen shan ka tukaa qof ka faa'iideystay oo shan ka qof oo markii horena ay soo gaamayn shan ka qof oo markii barnaamijkan baahinay soo xareystay baahan degmadoodii iyo degalkoodii baa loogu tago opportunity iyo chance-kii sanduuqa hayaan ugu geeyno u dhaadhicinay dadkaasi dhalinyaro u baahan bay isugu jireen maalgelinta oo kamay laxaadka ama laxaadkooda xadidnaa kamay maqnayn oo ku jireen oo qayb bay ka ahaayeen dhalinyaro tartamaysa lagama deyn tartanka wuu tartamayay laakiin turjumaana qofka dhegaha oo kale ka xadidan yahay qof turjumaana maanu isagoo su-aalihii technicalka ah laga doonayay qofka kale isagoo laxaadkiisa qaba waa la weydiinayay mid lamida la weydiinayay laakiin isaga translator iyo turjumaan baa loo sameynayay dadka qaar guuleystay ma jiraan dadka laxaadkooda way jiraan inaan dhegaha ka xadidan baa jira oo gibil ay ku tartamayay inaan baa jiray og bay masacaynaba something like that isaguna indhaha barrier ka haystay marka qayb bay ka ahaayeen oo dhalinyaradaasi waxa weeyaan dhalinyarada guuleystay bay ku jireen shan ka tukaasi ku jireen way marka dadka tusaale ahaan aragga ama maqalka naafada ka ah way maalgelin waa loo samayn karaa haddii ay guuleystaan absolutely dhalinyarada ka mid yihiin waa daada dhalinyarada ku jiraan dhalinyaradana mar haddii ku jiraan waxa uu challenge-ka uu qofka leeyahay isaguna leeyahay oo lamida buu leeyahay oo ama waxa weeyaan isaga dee loo naxariisan karaba marka qayb bay ka yahay barnaamijka imika aan qabanayna qaybkan kuwa soo wadnay soo socdana qayb bay ka noqonayaan insha Allah way bal haddaan chance ku sii lahaa ku oran lahaa waxyaabaha intii aad sanduuqa dhalinyarada horumarinta dhalinyarada Soomaaliya aad joogtay waxyaabaha aad qabatay mid iyo laba iyo saddex ka sheeg maxaad oran lahayd hadda baasanta cadaan way badan yihiin oo documentary-gii maanta dhaweeyay aan sameynay state oo kamid ah ku jiray ayaa one year ka waxaan qabanay aan ku kofar garaynay waxyaabo weyn baan sameynay ku markaan institution ka yimid from scratch aan ka bilownay oo waan de institution shaqeynayo oo capacity laan in hawlihiisii iyo shaqooyinkiisii isagu si madax bannaan u qabtaan ka shaqeynay waxaan engagement ka shaqeynay inaanu u raadino sanduuq wuxuu ku toosay yahay marka dakhliga dawladda kaliya waxaan u raadinay bal inaan ka wada shaqeyn karayno hay'adaha iyo meelaha madaxa bannaan ee kale inaanu maadaama youth-kii laga wada shaqeynayo inaanu bal ka wada shaqeyno inaanu youth-kii u shaqeyno oo dhalinyarada u raadino engagementada hay'adaha dalka ee youth ka shaqeeyo dhan waan la kulanay engagement dibadda baan sameynay oo dawladda iyo waxa weeyaan iyo waaweyn oo waxa weeyaan dibadda iyo international u shaqeeya so far waxaan nimanka rajeynaa insha Allah in engagementadaasi ay ka dhashaan dadkii aan dee aan gaadhsiinay aan engage garaynay sanduuqii iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland iyo waxaanu qabanay iyo waxaanu ka shaqeynay iyo imika way discussions-ka noo socda waxaan rajeynaynaa in discussions-kaasi ay meel dhalaan marka sanduuqa waxaan doonaynaa pool of funding noqdo oo aan
ballaarino scope-kiisan imanka miisaaniyadda qaranka oo qondada ugu jirta mooyaane wax kala ma helo laakiin in sanduuqdan ka dhigno meel fundist caalamiya ay kusoo dhici karaan oo lacag waaweyn la raadiyo oo si ay shaqo abuurka iyo shaqo la-aanta aanu dhalinyarada shaqo abuurka ugu sameyno shaqo la-aantana aanu kala dagaalano marka in sanduuqa basekiisii iyo capacitygiisa aanu ballaarino oo meel fundis hesha isla mar ahaantaana aanu tusno meel ay iyaguna aamini karaan oo ay sanduuqii lacag ku shubi karaan isla xisaabtan iyo daahfurnaana ay ka muuqan karayso oo sidii dhalinyaradii jimhuriyadda somaliland qof kasta oo somaliland jooga oo dhalinyaro ah ee halkiisa jaanisku ama opportunity ku gaaro way intii aad xilka joogtay kole qiimeyn baad sameynaysaan markastoo aad maalgelin sameysaan bal tusaale ahaan marka la eegayo bal xaddiga kalsoonida ay ku qabaan dhalinyaradu sanduuqa dhalinyarada horumarinta ee somaliland ma sanduuqa dhalinyarada kalsoonida ay ku qabaan maxaa iska bedelay bal kalsoonida ay ku qabto dhalinyaradu markaad qiimeyseen wallahi waa su-aal muhiim ah oo dhalinyaradeennu waxay badanka dee la qabsadeen kalsooni darro badan oo inay dee qofku aamino inaan halkaa jaanisyada noocaas ama heli karin ilaa uu qof u baahdo ilaa cid dhabarka soo taabato ilaa cid kala hadasho barnaamijka iminka u dambeeyaan qabanaynay dee degmooyinka markaan tegaynay marka qaar baa war naga sii horreynayay waa la odhan lahaa waxa weeye degmooyinka marka shan qof aan degmo walba 5 qof aan ugu talagalnay dee dadkeenu waa iska all society oo dadka qaarna shushaada qaybiyaano ama way dadka way narratives kale u abuuraan magaalooyinka qaar markaan tegno waxa lahaa 5 qof waa la sii select kariyay 5 qof mid maayar ka qaatay laba maayar ka qaatay mid maayar ku-xigeen ka qaatay mid xogeyaha qaatay wax noocaas dhalinyarada iyo tashuushka lagu furo waxa weeyaan waxanba waa la sii habeeyay waan u tagaynay 5 qof waxaan laga daalinayaa markii dambe ay arkeen say u dhacayso ama in hoolka furan ay tartankii ku dhacayso isla marhaantaana wuxuudii si daahfuran madaxdii ka cabanayeen halkaa fadhido aan hal qof influence ku yeelanaynin oo daawanayo se waxaas u dhacayso acyaantii kale ee magaalada iyo dadkii kale iyaguna fadhiyaan ay daawanayaan markii ay soo baxeen dhalinyadii soo baxday reactionkoodii iyo reflectionkay sameeyeen ba ahayd ismaanaan lahayn waa guuleysanaysaan oo xalay baabana lagu yidhi waxan waa la sii habeeyey 5 qof way sii habeysay maxaa ka daalaysaan dadna markaa dee so far iminka sanduuqii dee waanu meel wacan waan soo gaadhsiinay meel taraskiisa lagu aamini karay inaanu sii wadnana barnaamijyada aanu wadnana saan kuu sheegayo anagu siyaasad ahaan inta meeshaan joogo booskan joogo agaasimaha legasiga weynaan doonaya ka tagna waxa weeyaan in dhalinyaradu u sinaato opportunitieska iyo chanceska aanu bixin doono ee sanduuq bixinayo in sidaa daha furan ee transparentka ah ee iswada aragga ah ee laba gooraalaba marka koowaad tartamayana qofku isagoo hool furan buu ku tartamaya qof inta qol lala galo wax su-aalo keligii la weydiinaya aanu noqon marka dambena haddana la baahinaya dadkii guuleystay oo waxay tusoo taabsiya waxaanu taan doon inaan ku shaqeyno oo aan dhalinyarada ruuxdoodiina kusoo celino inaanay cidna u baahnayn oo qofka dhalinyarada intuu isku mashquulin lahaa cid raadso oo yaa kaala hadlaya yaa la hadlaya inuu isagu input iskeliyo kadibna isagu waxa weeyaan wixii uu bartay ama wixii uu doonayay ama fikraddii ka dhex guuxaysay uu bedkaa keeno lala arko oo sanduuq la arko oo ummaddu la aragto wax dee markaa ruuxdaasaan doonaynaa inaanu noolayno aanu soo aanu ka shaqeyno qofku tusaale ahaan dhalinyarada ay maanta markuu doonayo inuu baan ka qaato deyn ama uu ganacsi hayuu doonayo inuu tusaale ahaan baan deyn ka qaato ama caaqil baa lagu xidhaa ama qof baa lagu xidhaa ama qof hanti badan le baa lagu xidhaa marka adigu maanta waxaad dhalinyaradii somaliland ugu bushaaranaysaa inaan sanduuqa horumarinta dhalinyarada somaliland aanu damiin ku xidhayn qof kasta oo fikrad ganacsi oo saxa oo guuleysan karta haya way kala duwan tahay marka dee qofka deeq la siinayo marka deyn la siinayo deyn marka la siinayo mar walba garantarka waa jiraya damiinku wuu jiraya oo qofki lacagta waa laga doonayaa iminka barnaamijka hore aanu sameynay barnaamijka margin fund buu ahaayo qaybna sanduuqa lahaa qaybna dahabshiil baa lahayd fikra dahab baa lahayd 250 iyo 250 buu ahaa marka waxaa loogu talagalay maalgelinta
qarto xasanka ah ee aan iminka marka qofku bangiga toos uga qaadanayo 24% iyo 12% 18% waxba la saaraa qofka dee faa'iida saaran dee waa marka tan waxba ma saarnayn oo qofka intii la siiyay intii baa laga rabaa muddo 2 sanaana waa uu ku soo celinayaa oo bil walba installment monthly installment laga doonayaa oo wax uu bixinayaa marka mar haddii deyn tahay oo deyntu mar walba procedureka bangigu procedureka damaanaddu way ku jiraysaa waa oo qofka inuu maadaama lacagtii dee laga rabo oo wixii wax laisku dabagelaya ay tahay inuu qofkii dee soo bixinayo imiinku ku jiraya taan damaanada laga rabin waa teeda ya taan damaanada laga rabin markaan damaanada laga rabo marka dee qofka markuu deeq la siinayo caadiga ah laakiin mar walba qofkii deenu qaadanayo damaanadu way imanaysaa deeqdan la siinayo ee tusaale ahaan lagu maalgelinayo ma midaan laga rabin ba haddii iminka barnaamijkii dhawaadaanu bixinaynay waa inkayn buu ahaayo qalab baanu dadka siinaynay 100% dee wuxuu ahaa free waa oo layskama rabin qofka waanu soo qiimay waxaan 3 bilood baa la qiimeynayaa qofkan qiimeyn doonaa noloshiisii wixii sidii maxay iska bedeleen shaqo abuur ma sameeyey ma sii kobciyey qalabkii qalab ku darsaday ma u baahan yahay in la sii qabto marka kormeer dambaa lagu sameyn doonaa statuskoodii lagu ogaan doonaa marka 100% free bay qalabkii u baahan qalab baanu iibinay marka deyn ma hayna deeq bay haydo toos bay u qaateen wax soo celiyaan laga doonaya ma jirto laakiin markay meherad ama fikrad ganacsi u hayo la maalgelinayo ama bangi iyo sanduuq iska kaashadaan oo si scale loo baxno 250 kan qodan 250 bay keeneen 500 kun baa la bixinaya 500 kun la bixinaya waa lacag isku jirtay oo qaybna bangiga leeyahay qaybna ashli deena loogu talagalay qofka waa laga rabaa dabagalkeedana uu yeelanaya way markii aad la wareegtay xilka xukuumaddii hore ee madaxweyne musabbixi mas-uulkii iyo magacawdaad kala wareegtay dad badani waxay yidhaahdeen waxay lahaayeen agaasimiye halkaas wuxuu ka sheegay inuu kugu wareejiyey lacag bal iyada ka waran lacagtaa meesha ma ugu tagtay su-aasha sanad damba ka jawaabay illi weydiinaya maanta 500 sheego 500 kan ku sheegayo oo deynta ku baqnayd lacag kaasho taalay maahayn markaa laakiin lacagta inkara dahab iyo sanduuq iska kaashadeen ee baxday ee dhalinyarada kuma qanbeeyay marka deemku way soo wacanta dahabshiba soo aruurisa oo way soo wax 50% ka badan soo xarootay dhawaan insha Allah aan doonayna dib maalgelin daba loogu sameeyo aan dib ugu celino hadana dhalinyarada iyo dib loo maalgeliyo marka 500 kun meel yaala meeyeen 500 kun baxs deynta kuma qanay maalgelinta kuma qanbeeyay barna lahayd kala dahab lahayd barna sanduuq lahaa waxa laakiin lacag marka kaasho marka in shaqo lagu qabto diyaar ahayd halka iska dhaafsay waxa shaqada lagu shaqeeyay ayaa ku wareejiyay laakiin lacagta dadku waxay u aamineen inay tahay 500 kun oo kaasho yaala laakiin lacag process ka shaqo maqnayd bayd soo faarnay marka soo aan loo socdaa way soo xarootay 50% wax ka badan ayaa lacagtiisa soo xarooday oo dib u soo bixiyay dhalinyarada maalgelinta lagu siiyay dib u soo xareeyeen marka insha Allah aan rajeynayna dhawaana inaan dib ugu bilowno hadana maalgelin dambe dib u gelino way agaasimo ahaan gobolada bariga Soomaaliland aad bad uga sameeyeen maalgelin badan laakiin waxa dad badan sheegayaan inaan goboladii galbeedka aanad wax badan oo maalgelin ka sameyn arintaas ma jirtaa ma jirto oo imika barnaamijkii aanu sameynay ku sheegay imika kaasi degmooyinka dalka oo dhan buu ahaa oo ceelaf weyn ka soo bilownay laakiin baki wuu ku dambeeyay baki waan ku dhamaystirnay xagga laga bilaabay in dadku u arkeen in gobol laga shaqeynay ceelaf weyn ka soo bilownay soo socono baki waan ku gabagabeynay lixda gobolna degmooyinkooda ku jireen degmooyinka aad aan soo marnay xagga ka soo bilownay ceelaf weyn garaadag oog caynaba oodweyne sheekh oo soo soconay waxa weeyaan balgubale salaxley muxuu ahaa gabiley baki degmooyinka saasaan u soconaynay marka chanceska iyo waa loo sinaanaya waa loo siman yahay goboladuna waa siman yihiin dhalinyaduna waa siman yihiin barnaamijyada aan kulley imika
inta sanadkan ka hadhayna aanu sameynayna qayb bay ka yihiin dhawaanna insha allah waxaan u bashaareynaa inay dhawaanna insha allah aanu ka bilaabi doono maalgelin daba bilaabi doono weliba aanu ugu horeysiin doono insha allah dhawaan imika bishan aakhirkeeda ama bish august bilowgeedaba inaanu gobolka horta boorama aanu maalgelin ka bilowno insha allah inta sanadkan ka dhimanna ilaa 4 gobol inaanu maalgelin aanu ka bilowno rajeyna insha allah oo qorshaheedii imika aanu wadnaayo final yahay marka inta sanadka hadhow dhan imika waanu shaqeyn doonaa shaqooyinka maalgelinta iyo tartanka iyo kala saarista iyo howlahaasaan iyo qorshahoodii waan ku jiri doonaa marka insha allah waanu dad siyaasiyiinta tusaale ahaan mucaaradka oo kale aad bay u dhaliilaan oo sanduuqa waxay yidhahdaan waxyaabo badan bay sheegaan bal iyagoo kale maadaama ay siyaasadayaan in badan sanduuqii dhalinyarada ee loo maalgelinayay dhalinyarada somaliland bal ka war iyaga maxaad odhan lahayd waa horta dee dhaliishu waa caadiyo dee boosiish waxaan joognaa meel dee qaranoo dadku ay dee wada leeyihiinoo dhaliisha iyo toosinta iyo waxsusheeguwa way furan yihiinoo taasi sitif kama qabno halkaa waa ku qaladeen waa saxi kartaa ama dee waana la odhan karayaa laakiin guud ahaan anagu waxaanu ka shaqeynaa aniga kuu sheegay dee waxaa itusoo taabsiga baan ku shaqeynaa haynta iyo ha yaraatay laakiin waxaa yaraya aanu hayno waxaan doonaynaa in wax dadkiina wax weeyaan dhalinyaradii jamhuuriyadda somaliland macna u sameeya inuu noqdo oo noloshoodii wax ka bedela fikirkoodii wax ka bedela siday wax u qiimeyn jireen iyo inay iyagu naftooda dhisaan wax ka bedela qofku u arko inuu marxalad gaadhsiino qofku kalsooni 100% helo oo aanu odhan wax weeyaan waxbaa halkaa tartankaasaan galo tartankaa markaa taanu ka shaqeynayna ee aanu siyaasaddaanu qaadanay ama intaa kursiga booska aan joognay guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddaba waxaa ka go-an in dhalinyaradu chanceska ama fursadaha la siinayaa ay u sinaadaan ay daahfurnaadaan madaxweynahana jamhuuriyadda somalilandna markii uu mucaaradka ahaa iyo iminka uu madaxweynaha yahay intaba dhalinyarada si gaara buu u eegaa in dhalinyaradu wax noqoto in dhalinyaradu isku filnaato in shaqaabo loo sameeyo iminka intuu madaxweynaha intaasoo jeer buu madalo waaweyn ka sheegay in dhalinyarada la dhiirigelinayo oo dhalinyarada sanduuqoo kale uu sheegay in la xoojinayo oo si uu sanduuqu u kofargareeyo baahiyaha dhalinyarada jira marka madaxweynaha anagoo fulinayna doonistiisa iyo humaagiisa manifestadii hore markii dee la musharax ahaa buuggii lagu guuleystayna qeyb weyn bay ka ahayd in dhalinyarada maalgelin loo sameynayo oo dhalinyarada jamhuuriyadda somaliland curinta leh fikradaha ganacsi haysta doonaya in ay shaqo abuur sameeyaan in xoogga la saarayo haddii aanu sanduuqu qaabkaanu doonayna uga shaqeyno waxa weeyaan inuu shaqo abuur keeno waxay wax ka bedeli doontaa guud ahaan shaqa la-aanta dalka oo dhan qofka dhalinyarada ah ee la maalgeliyaa wuxuu kaga duwan yahay fikrad ganacsi helaa maalgelin qaataa wuxuu isagu sameynayaa isaguna shaquu sameeyey dhalinyaro kalena shaqa abuur buu sameynayaa marka u yar tahay xafiiska ama meesha uu sameeyaa number of dad ahbaa dhalinyaro ahbaa la shaqeynaya marka taa inaan xoojino oo insha allah number badan ay intaan joogno ay maalgelin helaan ama xirfado helaan ama imkaaniyaadka kale ee shaqada lagu heli karayaan u fududeynaa way naga go-anta insha allah way bal tusaale ahaan inagoo guntiga gabagabadii barnaamijkeena joogna labada su-aalada ugu dambeeyay barnaamijkeena aan ku weydiin doono dhalinyarada tusaale ahaan qofka maalgelin u sameyseen ma jiraa tusaale ahaan qofka maalgelin u sameyseen maalgelintii markaa u sameyseen tusaale ahaan ganacsi sameeyey ganacsigiisii markii dambe uu hana qaadi waayey tusaale ahaan uu istaagay ama qofka maalgelin u sameysaane ganacsigii uu ku guuleystay uu hana qaadi waayo maxaa xalo u sameysaan isaga mashruuca hore ee maalgelinta ahaa iminkan uu cusub yahay oo dee wax bil iyo bara aan gaadhin baa kasoo wareegay qiimeyntiisii waanu sameynayna markuu 3 month gaadho
kaa hore progress report baan ka sameynay oo assessment caadi aan gelinay dadkii maalgelinta hore qaatay statuskoodu siduu yahay businesseski ma u shaqeeyaan iminka ma taaba galeen shaqo abuur ma sababay incomekiisi ma kordhay isagu shaqo ma soo kordhiyey projectka hore waxaa nooga soo baxay in 98% dadku ay waxa weeyaan excess lahaayeen wax 2% wax ka yar ay failure ku yara yimi oo waxa weeyaan businesskooda sidii la doonayay aanay u shaqeynin laakiin ay struggle ku jiraan oo ay weli aanay ka harin marka way the businesska naturekoodu dee ma wada guuleysanayaan mana laga yaabaa dee waxay ku xidhanaanaysaa qofka isuga shaqeeyo marka qaar dee environmentka iyo suuqa iyo waxaa saameynaya marka dee waa la daraasaddaa way nooga soo baxday in wax 2% ka yar ay failure noqdeen kuwa hore maalgelintaa qaatayna ay nooca ahaayeen statuskooduna saa ahaa marka qiimeyn toos ahoo aanu la daba soconaa lagu jiraayo aanu ku qiimeyno kuwan iminka aan u dambeysay aan sameynayna markay iminka gaadhaan markay 3 month gaadhaan waanu qiimeynayna insha allah oo waxa weeyaan statuskoodii iyo shaqo abuur ma soo kordhiyeen mise iyagu noloshoodii wax ma ka bedeleenoo wax ma u soo kordheen dhalinyaro kale ma motivate gareeyeenoo maadaama dee cashuurtoodii laga maalgeliyo cashuurtii qaranka ay qaateen cid kale iyaguna influence ma ku yeesheenoo ididiilo kale ma abuureeno marka daraasado joogto ah oo istaba socdaan sameynayna insha allah inta badan waxaa la yidhaahdaa ama dowladdii ka horreysay oo kale waxyaabaha aadka lagu dhaliili jiray marka sanduuqan la joogo waxaa ka mid ah in qabyaaladda iyo eexda iyo waxyaabaha noocaas oo kale qof jeclaysi iyo sidaad hore u sheegtay in dadka qaar tusaale ahaan sanduuq iyadoo la maalgelinayo uu dad gaar oo kale ay ku guuleystaan maxaa bulshada u caddaynaa in sanduuqa maanta aad agaasimaha ka tahay ee horumarinta dhalinyarada somaliland uu ka midhan yahay eex iyo qabyaalad iyo waxyaabaha la halmaala wada saddex daahiro weyn waa tii aan ka dhawaajiyo aniga ku idhi anagu waxba qarsanba maynaba iminka haddaad iminka dib u eegto shadii ka tokaa dhalinyaradaas hanaankii loo maray sidabuu ahaa qaab nooceeyaba kusoo baxeen transparent ma ahayd madow iyo su-aalaha ku jiray dee waa wax la arki karayo oo dee qof marka screeningka soo xariisto qofka screeningka la sameeyo oo loo eegayo da-dii iyo shuruudaha buuxinayo 10 qofaa banalka soo gaadhayay 5 qofaa guuleysanayay 10 qofaa soo gaadhayay 10ka qof si toosa bay u tartamayeen oo wax weeyaan su-aalaha siman oo su-aalaha isku mid ama su-aalaha la weydiinayay dee taasaa caddaynaysa oo inaanay aniga kule taan doonaynaan ku shaqeynaa ama siyaasaddan ku shaqeynaynaa markii aanu nimi iyo iminka iyo guud ahaan madaxweynaha iyo xukuumadduba ku shaqeynaya in dhalinyarada waxoodu transparent ahaadaan wax la arki karayo la qiimeyn karayo oo si madax bannaan intaad u eegto eegi karayo hoolkaasoo fadhiisan karaya si wax u socdaan eegaya kadib dee qiimeyn karaya waa sababta aan u baahinaynaba qofkii dhalinyarada tartamayay daan cod gaara doonayna inaanu qorno dee liis gaaraan soo saari lahayn oo liiskaasaa guuleystay laakiin wixii aanu baahinay iyo sidee u tartameen waad nala aragtay oo anagan markii koowaadna hoolkii sodaara ka dhignay oo dadka ummadda dhexdooda ku tartamaya markii dambena waa tan miidiyihii aan u qaybinay miidiyihii soo la wadaagnay tartanku siduu u dhacay iyo hanaankiisu siduu ahaa qaabku ahaa marka siyaasaddan ku shaqeynayna waa taa qaabkaasaan u shaqeynaynaa waxaan filayaa dee inaanay taasina madow haddaan ku leeyahay kaalayba ilaa arag wixii aan hayay oo noocaas tartano kadibna adoo keliya qiimin maysa dadkuna way nala arkayaan waxaaga waa la baahinaya waxaaga waa la arkaya ma filayo meel dee dareen noocaas iyo uu ka iman karaya lama ugu dambeyn bal maadaama dhalinyaro badan aad maalgelin u samaysay kuwa kalena ay sugayaan ka sanduuq ahaan ugu dambeyn fariinta dhalinyarada somaliland u diraysaa maxay noqonaysaa ba saddex daahir walaal fariintaan u dirayna waxa weeyaan in sanduuqa horumarinta dhalinyarada somaliland aan u taagannahay inaan dhalinyarada horumarkooda ka shaqeyno jaanisyada iyo fursadaha sanduuqa hayaana ay fursadaha daahfuran ay noqon doonaan kuwii horena ahaayeen iminkana ay noqon doonaan oo aan insha allah barnaamijyo waaweyn aan usoo wadno intaan sanadkan aanu dhammaan gobollo badan aan ka shaqeyn doono
as soon as possible shaqooyinkuna u bilowmi doonaan jaanishada sanduuqu baahin doonaan ay sidaan u sheegnay ay waxa weeye u siman yihiin ay soo gaari karaan ay xareysan karaan marka barnaamij la baahiyo inay taraygareeyaan oo waxa weeye ku tartamaan oo dad dhalinyarada fikradaha ganacsi ama curinta leh ama inuu ka dhex guuxayso minsad business ah oo fikrad uu hayo inuu hirgeliyo ama mid haysta fikrad hore haystay oo doonaya inuu hirgeliyaba inuu sii ballaariyaba labadaba way furan tahay sanduuqu waxaan leenahay waa sanduuqii horumarinta dhalinyarada Somaliland waa sanduuqii dhalinyarada annagu waxaan ka shaqeyn doonaa inaan dhalinyarada shaqo abuur iyo kalsoonidooda iyo inay wax u soo kordhaan dhalinyarada inaan ka shaqeyno culays ka saarno si daahfuran aanu hawlahooda iyo tartamadooda u qaban doono taasaan ugu bishaareynaa inaanay sanduuqa ugu soo hagaagin wax madmadoowa inaan sanduuqu madalaha uu ku tartansiinayaa ay furnaanayaan qofka iyo xirfadiisa iyo kartidiisa oo looga baahan yahay markaa uu ku tartami doono insha Allah waxa uu yaqaan iyo waxa uu doonayo fikradiisu sidee attractive u tahay iyo sidee u shaqeynaysaa iyo sidee dadka u soo jiidanaysaa iyo sidee dhalo noqon kartaa oo iyaduna waxba laga eegayo qayb weyn bay ka tahay in fikradda qofka wata shaqo abuur ma sababaysa shaqo abuur ma saamaxaysa inay dhalinyaro kale uu shaqo abuur u sameeyo inuu isagu shaqo abuur sameeyo in fikraddan sidee u shaqeyn karaysaa marka qiimeynta waxyaabahaas oo dhan waxa ka soo baxayaan marka qofka su'aalaha la weydiiyo ama business balaankiisa iyo qorshayaashiisa uu la yimaado marka taas lagu bishaareynaa in barnaamijyada iyo jaarisada sanduuqa ay daafurnaan doonaan inay iyaguna waxa weeye ka wada qayb qaadan doonaan oo waxaanu helno si daafurnaan soo deyn doono guud ahaanna aanu intanan ku koobnaanayna inaanu raadino oo aan dadaal weyn noogu jirno dee wanagii iminka intii aan magacawnaa dee tiraba shirar waaweyn oo caalamiya waan ka qayb galnay ujeedkan u soconayeen meelaha marna waxay ahayd bal in engagement aan helno institutionska waaweyn iyo meelaha dadkaa isugu imanaya ee youth development ka shaqeynaya inaanu connections ka helno aanu sanduuqii iyo noocaasaan haynaa dhalinyaro noocaasaan dalkaygu waa sida Somaliland dhalinyaro fara badan baa ku nool oo bilaa camal maxaynu ka wada shaqeyn karaynaa maxaynu iska kaashan karaynaa maxaad wax nagala qaban karaysaa marka inta aan hayne ee miisaaniyadda ku jirin inaan ku koobnaane albaabo badan waxaan u garaacaynaa oo aan u soconaynaa oo aan haddii loo kuwa dalka jooga yihiin iyo kuwa dibadda jooga yihiin oo u soconaa weeyaan in aanu biiskii sanduuqa ballaarino in sanduuqu waxa weeyaan uu helo fundis kala duwan oo marxalad dee caalamkina uu arki karayo oo nala eegi karayo aanu soo gaadhsiino aanu marka insha Allah rajaynayna in jaanisyo badan aan samayn doono oo intana bilowba heedo sanadkan yarkan laakiin in sanadkan iyo sanadada socda in dhalinyaro badan oo aanu maalgelin gaarsiin doono insha Allah way aad iyo aad baad mahadsantahay agaasimo waqtigaaga waa kaaga mahadnaqaynaa inaad xafiiskayga nagu soo booqato barnaamijkan daaha furan leh aad na soo hor fadhiisato su'aalaha bulshada isweydiinaysa aan ku weydiino waa kuu mahadnaqaynaa daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa waraysi aanu la yeelanay agaasimaha sanduuqa horumarinta dhalinyarada Somaliland Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Jeylaani oo aanu ka wareysanaynay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Somaliland iyo sidoo kale maalgelinta kala duwan ee uu sameeyo dhalinyarada ku dhaqan Somaliland maalgelinihii ay qabteen waxyaabihii kala duwanaa ee intuu agaasimuhu hayay xilka ama xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ay dalka maamuleysay waxyaabaha uu sanduuqu qabtay waraysiga waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Daahir ah waxaan iskaga tegaynaa anigii agaasimuhuba salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa mahadsantahay agaasimo aad waa mahadsantahay thank you so much